تاسوي سببت أقفل بوحس ده يا الله الله كتاب مي برتي دق 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 رج وأثيرنا يسوع أرديه وداونا يا حاجة قرمي دارون دون تقرمي لماتي معناها ماشي وحكي صوب حيسا إن المقال هذا نسيت سوالف الحكومة ماذا رنشك وعيب شك رنشك وعيب شك قبطن أن كالها اللي يبقول كيبا سجاشن إيه سجال قبلها نقول ده أنيقا عجائب من الغدرة الدنيا وحكا دعايا اللي يابيس والدنيا إنده قرت لها أي قبانيان كوي قردرنانا أي سوقم قموحيين عجائب من القدرة لا ياب يربان إذن لو ذاقيا لبا قبضود أي شيكي سنيي وحيكون شيكي سنيين هبلايا وفري هبل كأي شيكيان وانين عان صاحب كي وأنا أذو قرنية أو أقان هبل أيا هبلايا فري بيجيرهدين وان حي ميل باي دمقتي هوري أيام وحن كحسوستي ubadkii iyo caruurtii iyo waliba jacaylkii u dhaxeeyay labada qof oo aan ay ahaayeen laba qof oo aan aad u garanayo isla markiiba waa ku soo jeestay waxaan idhi ma furay waa isugu kay raaceen waxay dhaheen waa furay telefoonkii baan haabtay waa ka tagay baabuurka ay ka haystay waxaan la hadlay hebel laftigiisii salaamu calaykum hadda ninka naagti gabadhii miyaa furtay degdeg lagu lama soo boodi karee xaggan ka jiireeyay oo xagga kaga jiireeyay oo sidii qaanso roobaadii saa ugu wareegay iyo lubaan dakarti saan ugu gaaf wareegayay oo booris ugu qarinayaan markii dambe si hoose u weydiiyay maya waxa weeye safar baan gaarayo haddaan soo socdaa waa imanayaa 2 maalmood baan halka hawl ka soo hayay waka wallahi waa wixiisay waka sheeko kale iyo jacayl hor leh iyo wixii aan ku aqaanay buusaas uu qasayo waa igu fatahay anoo yaaban baan telefoonkii damiyay gabdhihii gabar kamid aan soo wacay waxaan ku iri la hablaayo maxaa baxarka ii gelisay maxaad iiga nixisay maxaad u tiri ninkii saaxiibkay ahaa xaaskiisii ugu furay waxay igu tiri TikTok-ga sawiradii ay ku wada jireen isaga iyo iyadu oo dhan bay ka tuurtay waxayna soo saarsatay hees jaaw nabad geliyo salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan adiga dheehanaysaan waa bartiini waa barteeni waa barta aan ku kulmi jirnay waa la kaamil iyo baro aad iyo aad ayaad u mahadsantiin walaalayaal ku soo dhawaada meel leedin ka jecel yahay walaalaha qalbiga ilaahay ayaa mahad iskala isugu keenay muuqaalka kan inaga oo caafimaad qabna runtii sheekadii qosolka badnayd dhinacna la yaabka ka lahayd aan idinka sheekeynayay ayaan waxaan ku keenay waa arinta Muniir iyo walaasheen Astur waxaan arkayay iyadoo la leeyahay gabadha waxa la yiraahdaa Astur channelka hawadana waxay ku martaa Asturan ama channelkeedana waxa la yiraahdaa Asturan waxaan soo daawaday muuqaaladii oo dhan dadkii ka hadlay iyadu say u hadashay wixii oo dhan kulli waa soo daawaday waxaan jeclaystay bal muuqaalka mar labaad hadda ka hor baan wax ka iriyo falcelin waxaan ka sameeyay muuqaalkii Muniir anoo Djibouti baan jirayo aad iyo aad reer Djibouti halkaan aan ka salaamaya dad sharaf leh qiimo badan agtayda cizi iyo karaamo ku leh asxaab badanna aan ku soo yeeshay inta aan horay ugu lahaa laba jibaarka waa markii labaad oo Djibouti tago 2008 waxa igu xigtay hadda aan ka imi farxad iyo niyad sami iyo jawi wanaagsan aad iyo aad sida daraadeed markii aan imiba ninkan ayaan waxaan ka sameeyay falcelin barnaamijka hadaan si fiican markii horena waa dhageystay laakiin hadana si fiican u sii la faguray waxaan raadiyay gabadhu muuqaalkii ugu dambeeyay kan waxaan ka soo qaatay template-keedan ka soo qaatay macnaha
muuqaalkan sawirkan fallaadho ku taagan tahay kitaabka jaamaca iyo iyada oo wajigeedu nooca yahay maaha waxaan anigu sameeyey waa iyada janaalkeeda baan ka soo qaatay markaan arkay waxaan u qaatay kitaab jaamaca inay marayso qoraalla way ku soo qortay dhaar ayaan ku qancaa ana waa ku soo qortay waxaan u qaatay inay dhaaranayso bilow ilaa dhammaad baan dhageystay muuqaalkeeda waxaan sugayay iyadoo kitaab ku dhaaranaysa iyo wixii uu ku sameeyey soo bandhigaysa waa qoslay marka waxa igu soo dhacday markaan ka waayay sheekadii gabdhuhu ii sheegeen macnaha haddayba maanta gabadhu soo dhigto tiktokeeda hadday sawirka ka saarto ninkeeda oo ka xaalufiso gabdhihii kale waxay iska dhaadhicinayaan heblaayo waa la furay waa cajiib guurku markhaantiyuu leeyahay furiinkuna markhaantiyuu leeyahay intaa haddaan taa uga gudbo walaasheen muuqaalkeedii markaan dhageystay waxaan aad uga raadiyey kelmadan horta waa i cunsureeyey oo calanka anigu calamada qabiil uma aqaani calamada waxaan u aqaanaa maamulkuna cid walbuu ka kooban yahay cid gaarina ma yeelan karto mana lahaba ma garanaysaa xoogaa waa u tugtug roonaan kartaa isxumbuburinta macnaha iyo maaragtay waa dhici kartaa laakiin maamul qabiil soocan lagu tilmaama dee maba jiroba maamulada soomaalida guud ahaan waa soomaali dhammaantood hadalka cunsuriyaddu ku jirto ay ka sheekaynayso iyo wiilka ninka kaleeto ay ninkan saaxiibka yihiin markii laga tago oo dhinacaasi maaragtay xoogaa wax fiican aysan ahayn waxaan rabaa inaan hal mid iraahdo hal raggu dabeecad waa u leeyihiin raggoo dhanna maaha waa ragga qaar hal dabeecad waa u leeyihiin ninku markii uu lacag haysto ama wax uun haysto oo gabdho u baahbaahdaan xataa nin xafiis fadhiya ha ahaado adeer soo soco waa wax loo qaateena way dhacdaa rag badan baa ka suurowdaa dad badan bay ka suurowdaa waana wax dhaca waa wax dhici jiray waana wax dhici doona laakiin haddii uu ninku yiraahdo gabadha laba mid baa la gudboon arrinta uu sida waxa ay doonayso oo arrinta ay markaa ninka uga baahan tahay ama xafiis ahaadeen ama lacag ahaadeen in ay u fuliso oo tiraahdo okay walaal anigana de lacagta isii hey soo dhawow oo markaa ninkaasi kaarkiisa marsado waa dhacdaa wax dhaca dadka xun oo ilaahay ka baqayna ka suurooba ay ka dhacdo kana dhici doonto weligeedba waa wax iska ma garanaysaa shaydaan uu dabada ka wado waa wax dhaca nin kasta oo wax looga soo baahdaana samayn kara waa wax dhaca macnaha dhacdo wey laakiin inuu kaarkiisa marsado iyo inay tiraahdo horniyo raalli ahaw anigu waxaa maayo miyay qabanaysaa waxaa may dee raalli ahaw anigu maaragtay jirkaygana ku siin maayo adeer isulkaa badeli maayo nabadey oo ay banaanka ka marto marka anigu hal baan isweydiiyey maxaa oohinta keenay maxaa dhaar keenaya maxaa keenaya waxaan oo dhan macnaha gabadha waxaan raadiyey sidii ayaaniita oo kale waxay samaysay nin baa isku dayay inuu kufsado way la dagaalantay dhiig baa ka daatay way dagaalantay waa la arkay dee waa ogeydeenoo social mediaha aad baa looga hadlay oo dadkii ka hadlayna ka mid baanu ahay sidaa daraaddeed dee wax iska cad bay ahayd oo nabar baa ku yaalay oo dhaawac baa ku yaalay gabadha dhaawaceeduna wuu muuqday laakiin haddiiba arrintu waxaan anigu ka raadshay wax noocaas oo kale ah gabadha markaan dhegaysanayey oo ay oohinta macnaha oohinta actingka ay samaynaysay anigu ma arkayn oohin sababtoo ah qof makeup marsan hadduu ooyo hal mar oohintu tiriq macnaha isla markaba makeupki way soconayaa ma ogtahay
iscunid buu yaqaanaa makeupku meeshiiba isla markii isbedelaysa uma arkin inay oyday uma arkin laakiin xoogaa waxaan u arkayay isbihin ama jilid oo kale waa qaabka aan u arkay ra'yigayga wey saan u arko weeye marka ay taa samaynaysay si fiican baan u dhuuxay waa i taabtay ma oran waa i xoogay ma oran qol buu ii soo xirtay oo waa ii hanjabay xataa oo markaan xusuusto qalbiga ay dilaacaya laakiin haddiiba ay tahay arrintani waa arrin dadka xunxun ka suurowda eeg u fiirsada ma aha wax wanaagsan waa wax dadka xunxun ilaahay aan aqoon aan garanayn xaqa iyo xuquuqda maaragtay xaqa ilaahay qof aan garanayn waxay ka suurowda wey waa wax shaydaanku uu qofka ku qaado haddiiba ay dhacdo oo shaydaan ku qaaday aad tiri walaal maya dee waxaa ka murugootid meesha ma yaalaan walaashay waxay ka murugooto meesha ma yaalaan oo maanta muniir baa saa igu sameeyey muniir wax loo yidhaahdo waa imaa youtubadu waa yaqaaniin ku kala kicis waa yaqaaniin gabadhaas waxay igu tiri marka views baan ku raadinaya maalmo kadib waxaan arkay baddii iyadoo jiirtay iyadoo baddii ku dhex jirta oo saa u dabaalanaysa iyadoo dad kale ku eedaynaysa anaa views laygu raadsanaya waa isla iyadaa ii soo dirtay whatsappka bay iigu soo dirtay iyadoo waxay leedahay iga leexo walaalow views baan ku raadsanaya marka bahalkan daawashadu meel walba waa gashaa sababta aan qodobkaa u leeyahay wuxuu yahay muuqaalka walaashay bilow ilaa dhammaad baan dhegaystay kitaabka jaamaca bay soo saartay waxaan moodayay inay leedahay waxa igu wallaahi igu bilaahi igu tulaa ninkaas gurigu maaragtay wuxuu damcay inuu ikhasbo inuu ixoogu damcay inuu ama waaba i damcay xataa baan kitaabku maraya waa ka waayay waxaan marka waayay oo aad u raadiyay oo muuqaalada oo dhan ka baaray oo dhowr janaal ay ka hadashay ka baaray ninkaasi wuxuu igu yiri haddii aad rabtid inaan wax kuu qabto macnaha nafsadaada iigu bedel macnaha intaasaan arkay waa sax gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo kuu soo baahatay hadalkaa haddaad tiraahdid waxa tahay doofaar baa tahay aan laga doofaarsanayn xaaraami baad noqonaysaa aan laga xaaraamisanayn qof walba oo inta gabar Soomaaliyeed wax uga soo baahato waxaasoo kala yiraahdaana wuxuu noqonayaa zani buu noqonayaa sababtoo ah waa qof zina raadinaya oo inuu sinaysta raadinaya oo damac sina ku jiro laakiin haddii xataa lacala ay dhacdo oo waxa aad sheegaysid walaal macaan ay kaa dhab tahay hadda diiday Soomaaliland okay ha lacala waa saa sheegtay markii lagu raaco diiday baa tiri soo maaha okay hadda diiday haddaa tiri maxaa loo oyday hadda wiilku ma ku khasbay xaqiiqda aynu u dhacnee ma ku khasbay ma ku hujuumay ma qolbuu hoosta kaaga soo xirtay oo ma garanaysaa ma waxbaa dhacay waayo baad la oyday maxaad la ooyeysaa oo hinta keenay maxaa dhaarta keenay haddii shaydaan ku khasbay uu saa ku yiri asaa diiday guulaysatayba soo maahan marka maadaama ay saas tahay anigu waxaan u arkaa waxaas inaysan sax ahayn oo haddii ay sax ahaan lahayd dadku 24 saac waa dhaca qaladaad baa dhaca laakiin qofna qaladku waa u suurtagalaa qofna waa u suurtageli waaya haddii ay qofka u suurtageli weydo dee nabaday maxaa dhacay oohin ma taal dagaal ma yaal ceebayn ma taal in muuqaalo la isu soo fariisto oo macnaha qofku markuu dhib kuu geysto oo dhibka uu kuu geystay ay ma garanaysaa adiga ku taabato oo ku gaarto de inaad ka hadashid inaad ka dagaalantid inaad xaqaygaan rabaa tiraahdid de laakiin walaal haddaan dhibi ku gaarin oo waxa aad sheegaysaaba uu hadal keliya yahay waxaan u malaynayaa dad badan baa jira oo views markii la yiraahdo uu meel xun ka riday dad buu
dharka inay dhigtaan gaarsiiyey social media dad badan baa ku wareeray dad buu meelo badan ku gaarsiiyey marka walaalahay macaanay yuusan adiga meel xun ku gaarsiin hadiiba sanad ka hor muuqaal kula duubay lacalla taadan ku raacaya lacalla haday dhacday sanad ka hor wuu kula duubay oo muuqaalkiisa waa arkay laakiin haday dhacday lacalla sanad ka hor in uu markuu muuqaal kula duubay kadib ku ogaaday kadib xatanaha tiri wuu isii damcay oo damci baa u suuroobi waayay hadda waa ka tagtay ilaa sanad ka horna waad noolayd dhibaato kuma gaarin ma garanaysa raggu gabdhaha waa khiyaamaystaan markaynu si caadiga Soomaalinimo u hadalno gabdhaha mid bay xoogaan mid waa khiyaamaystaan mid waa siraan mid waxbay ku sameeyaan nin walba oo dhaalim ah oo zaani ah oo alla aan aqooni nooc allaale iyo noocu gabadha ku siri karo dhaqaale ku siriya waxay u baahan tahay ku siriya xoogiyay afduub wuxuu wax allaale iyo si uu doono buu rabaa in wax ku helo uu ku siran karaa walaal hadiiba ilaahay ka badbaadiyay adiga oo wuxuna uu hadalba ahaaba walow ninkan anigu aan maqlay inuu xaas leeyahay oo nin xaasla uu yahay ninka xaaslahayna waa ka bahalkaysan yahay inkastay kuwa xaasla ah oo iimaan kale ahina jiraan haddana ninku markuu xaas leeyahay ninka aan xaaska lahayn waa ka roon yahay sheekada asad xaaji oo iyadoo lagu soo danayana waa arkay marka wax cajiib ah weeye qofku hadduu ku yiraahdo anigu waxba ku qaban maayo ina ceebaysid xaq ugu malihid qofku waa xor maanta hadaad gabari aniga ii timaado naftaydan ka soo qaadaya haday ii timaado oo tiraahdo walaalka caliyo waxaan rabaa inaad maaragtay shooradi samee xagga yeel channelka ila kala kici diiday anigu diiday hadaan iraahdo ana xora gabadhu de xoog ugu male adiguna waa tiyo kale de xoog kuma lihid laakiin kolba isagu waaba kula duubayba wuu kula duubay oo waa kan muuqaal buuba kula duubay oo waa kan asturan oo isagoo channel baa u sameeyay wixii oo dhan waataynu aragnay marka walaal macaan dhibi ma jirto haddii Muniir ay ka suurowday inuu saa ku yiraahdo anigu malihi waa ka suurowday sideedabana ma aaminsani waxa sheegaysaa inay run tahay adiga maba aaminsaniba waxba waxaan u arkaa in afiyus raadinaysid oo xaqiiqada dhabta amarkan ka hadlo in isagu uu arintaas macnaha anigu isagu malihi waa nin aysan ka suuroobin maba aqaanba aniga isaga maba aqaanba wallahi billahi tallahi weliga inaanan la hadlin kor uun baan ka aqaan isaguna waxaan malaynayaa inuu koriga yaqaan weligay baanan wada hadlin weligay bay laakiin anigu dahiri maayo isaga balse sida ila muuqata hadalkaaga sida iiga muuqatay ma garanayo wax kala ku soo diraya ma fiyus right laakiin saa malaynayo waxa weeye fiyusku intaas hadda lagu baray subscribe fiican heshay meel fiican baa maraysa inta kadib dhinaca wanaaga u dhaadhac ka tanaasul barnaamijkaas intaasaan rabay inaan ku iraado gabar walaashay baa tahay wax kalena maaha templaynka aad soo saarsanaysid kitaabka quraanka ah iyo labadiina baan ku dareemaya in aad fiis raadinaysid taas way sababta qof walba wuxuu isdhahay Allah kitaab mii bartay dig waa fiirinayso u soo ordayo waa daawanaya xagee gormay dhaaran doontaa gormay dhamaatay macnaha meesha waxa ka soo baxaysa inaad muuqaal raadinaysid Soomaalidu waxay ku mahmaadaa run sheeg waa ceeb sheeg run sheeg waa ceeb sheeg haddii runta lagu sheego laguma nebca haddii qofka runta loo sheego lama nebca waa qof la rabo goobtan aan kaala hadlayo boqolkiiba 99 gabdhahan ugu dooda aniga laakiin tan waxaan u arkaa in ay tahay midaan waxba ka jirin mana aha inaan leeyahay nimanka zinada raadiya waa dad wanaagsan waxaan leeyahay waa dadka ugu xun waa akhasunaasiyo waa dadka ugu xun ugu garashada daran waa ragga ugu liita weeye
وكو الليتا أولي بآذو الليتا بان ليه لكن ولا شيء لعل هداي دعداي أنا waxaan ku leeyahay ma dhicine لعل هداي dhacday oo macquul ay noqotay oo aad tiri diiday maxaa ku jaban ka tagtay riyadiisiiba u rumayn weyday daalimkaas oo maaha markaa ha hadaba u rumayn weyday maxaaba ka jira isaga tagtay خلاص marka walaal riwaayada inta ku soo afjar wixii agtini waa dhamaanayaan iska dhamaanayaan xaqadu waa soo haraysaa Munir waa nin dhalinyaro ah isaga iyo raga kale oo youtuberada ah oo dhan waxaan kula dardaarmayaa war gabdhuhu markay idin yimaadaan wanaaga dhinaca wanaaga ah raaca dhinaca wanaaga ah kamala hadda kadibna ninkii gabar u timaado oo channel kala hadlayso sheekadaada public ka dhig yaysan noqon wax labadiina ah ku wada hadashaan public ka dhig ilaa saan oo kala ba iska iimaan kartaba hadda kadib hala iska waardiye intaasaan ku soo gabagabeynaa iska kaftan intaasi waxaan idinkaga tegayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nooli kulan